السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن دمان أصحابتي قاليقة halka aad daawanaysiin waa Simple Iman magaciigan waa Faadimo Bashiir please hadaa tahay marka kugu horeyso channelkeena soo booqatid subscribe ka nagi loo like noo saar commentiga iyo wixii fikir ah hoos noogu raab hadaa hore noola joogteen hadee welcome back to our channel asxaabta qaaliga ah waa maasantiin sida quruxda badan ay ugu xirantiin mar walba idin mahad celiya ilaahay ka sikumaad celinta waa idinka asxaabta qaaliga maanta waxaa idin wadaa barnaamij ka duwan barnaamijyada kale oo aan mar walba waxaan jeclahay wixii markaas aan arko oo cusub oo niyo ah inaan idinla wadaago ama ay idinla share gareeyo ama haday qiso ahaato iyo haday wax kale ahaato iyo haday ahaato story ama wax dhacay oo markaas jiro haday tahay maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamij aan ka soo arkay channelska aan ku xiranahay mid kamid ah oo run ahaantii aad aan ola qeyrooday laakiin waxaan jeclaystay inaan idinkana aan nii soo bandhigo macnaha waxay noqonaysaa macnaha qofka bini aadanka ah marka qof aragtid cawanaayo ama qof aragtid wax ka sheeganayo haddana wixii markuu wax ka daran arko maybe waxaa laga yaabaa inuu dhaho alxamdulillah adigoo lixaadkaaga qabo oo hodanka ah oo ordaysid oo wax walba qabsan kartid wax walba samaysan kartidna haddaa cabatid waxaa arkaysaa waxyaalo badan oo kaa daran oo aad iyo aad run ahaantii kuu qiirogeliyo waxaa rabaa maanta inaan ka hadlo laba gabdhood oo mataano ah janalada aan kamid ahay aan ku xirnay dadka ku xiran aan kamid ahay oo laga soo sii daayay janalkaas waxaa waaye mataano oo macnaha waxaan aragnay dad dhinac iskaga dhegan waxaan aragnay dad madaxa iskaga dhegan waxaan aragnay mataano si walba iskugu dheganaadaan ama waa la arki jiro ama adigaba horeba u arki jirtay laakiin maanta ani maxaa arkay muuqaal aan daawanayo oo iska socdo gabdho iskaga dhegan intaas halkaas ma aragtaa sujuuda ah halkaas iskaga dhegan yihiin waa laba qof oo halkaa iskaga dhegan meesha wajiga halkaas meesha sujuuda dhulka la dhigi lahaa foreheadka ee halkan hore iskaga dhegan gabdhahaas waxay dhasheen waxay jiraan hadartaan 13 sano jiraan isbitaal ay ku dhasheen markay dhasheen dhakhtarku wuxuu dhahay ma noolaanayaan gabdhahan 10 sano ka badan ma noolaanayaan laakiin hooyadu waxay sheegtay in 13 sano nool yihiin oo gabdhaha ay joogaan qarashka la dhahay waa lagu saajar gareena ama waa lagu qalayaana run ahaantii ay tahay qarash aad u badan muuqaalka gabdhahan badankeena anaga dadka Soomaalida ah badankood kuma badno ciladaas waa ognahay ilaahay waxaan ka baryayaa dad masaakiin aan ahay anaga badanaa ma qaban karno ma heli karno laakiin inaa qaliin badan la sameeyo ama waa ilaahay xaalka dadka uu ogyahay laakiin ma arkin oo ilaahay hadda nama tuso laakiin aad oga naxay gabdhahan gabar wariye ah waraysi ka qaadayso sawirkooda horaa la tusinayaa oo waxaa leeyahay sawirkan mataqaantiin hay leeyihiin imagine ani aadaan muuqaalkan saaka uga naxay marka arkay waxaan is dhahay muuqaal weligay allahi maana arkin wax ugu cusub waaye ani mar walba waxaan jeclahay asxaabteeda qaaliga wixii markaas ani ugu cusub inaa idinka nila hor imaado oo wixii markaas aniga aan la yaabo ama aan arko ilaahay abuuristiisa lama yaabo wax walba ilaahay qafuur raxiim waa ugu awoodaa laakiin gabdhahan si iskugu dhagan yihiin waa si cajiib ah qof wajiga kaaga dhagan imagine adiga oo hadda kaliga ahaa culayska Soomaali Maxamed aan waa is ogna culayskaaga socon laadahay haddii qof intaas uu kaaga dhaganaado ka waran 13-year-old twins Joy and Joyce are craniopagus conjoined twins, meaning they were born with their skulls fused together. Doctors have looked at separating them, but the operation comes with numerous asxaabta qaaliga gabdhaha isku dhaganaadaan ma xumo laakiin meel wajiga ay iskaga dhagan yihiin at the same time markay soo dagaayaan gabdhahan gabarna xaggay u jeedaa gabar kalena intay u soo jeedaa xataa isku dhinac uma socon karaan waxay noqonaysaa qofna inuu halkaa ka soo qofna inta ka jeedo jaranjarada say uga dagaayeen idinka waa u jeedin ilaahay dhibaatadaas nama geliyo ayagana Allah ka dulqaado risks to both girls, not to mention the $75,000 price tag. Sino yan? Baby.
wallaahi arrinta kaloo la yaab kale waxay tahay aan hadda ku arkaya muuqaalkan idinkana ay la daawanaysiin waxa waaye gabdhahan ayagoo waxaan ku iri yani dhibaataysan laba qof oo isku dhegana culayska ay isku haayaan aad dareemi kartid yani iban xataa hurdada habeenkii marka la seexanayo xataa ay dhibaato tahay yani wax walba dhibaato ah ay ogyihiin yani aad dareemaysin adiga naftirkaaga daawanaya arkaysid ama aad ogtahayba in qof kugu dhogan maybe waxaa laga yaabaa in labada qof xanuunsada caawo kaleeto qofka kalena uu fiyow yahay yani maxay isku qaadanaysaa duruufta in labadan qof caawa dhan ay isdaba socdaan hadduu qofka xataa uu macbay maybiyo qofkan kale caloosha laga qabto ama xanuun kale qabsado waxay noqonaya qofkan kaleetan uu daba socdo si ay yani xanuunkaas ay qofkan haayo kan kale uu isagana uu daba socdo maanta 12 nasashiina ay lahayn qof hadday hurdo la-aan ku dhacdo kan kalena waa soo jeedaya yani macnaha yani way isku dhib qabaan run ahaantii qofkii dareemi karo haddana ayagoo waxaasoo dhibaato ay haysato iyo waxaasoo dhib ah maanta aa ujeedid ay haystaan haddana gabadhan waa arkaysaa ismay dhiibin ilaa ay hadda nolosha waxay marsanaysaa makeupkeeday soo qaadatay way iska marsanaysaa yani way sheekeynaysaa inkastoo labada gabdhood ee mid hadlayso midda kalena ma aqaan ilaa hadda muuqaalka aan daawanayo weli iyadoo hadlayso maana arkin mid baa badanaa hadalka u badan oo hadlayso yani makeup ay marsanaysaa imagine ismay dhiibin weli When the twins were first born, the prognosis given for their survival rate was bleak. Sabi ng doktor, aabot lang daw sila ng 10 taon yung buhay nila. Pero ngayon, magta-13 years old. Ang nararamdaman ko, nalampasan nila yung 10 taon. markay dhashay gabdhahan oo ay dhaqtarka ku dhasheen dhaqtarka wuxuu dhahay gabdhahan 10 sano ka badan ma noolaan karaan yani saas uu hooyada ugu sheekeeyay laakiin hadda waxay leedahay 10 sano ka badan ay nool yihiin yani ilaahay caza wajalla waxaa waaye qafuur raxiim waaye wuxuu asaga qorshaystay ayaana qorshaysan yani wax kaleeto ma qorshaysana wuxuu asaga qorshaystay ayaa qorshaysan gabdhahan hadda wuxuu dhahay dhaqtarkii 10 sano ka badan ma noolaan karaan laakiin ilaahay wuxuu qadaray inay 10 sano ka badan nool yihiin oo maybe ilaahay inuu cimrigaas cimri kasii badan yani uu qoray ilaahay waxaan ka baryaynaa anagii inta islaam iyo inta masaakiin ahba inay dhibaatadan oo kaleeto dhinac ka mariyo run ahaantii muuqaal aan la cajab u ahaa saaka aan daawaday waan la qiirooda gabdhahan run ahaantii waan dareemay yani culayska ay dareemayaan Sobrang saya ko kasi nalampasan nila yung sinabi ng doktor na anong gusto ng merienda ng mga baby ko? Pancake? Sige, magluto tayong pancake. Gusto ko ng kaiwalit dahil para tumahan ko gusto na maayos at para dito maganin ko yung yani saa aragno midaa hoosha qabanayso midda kalena way iska taaganta waxba ma qabanayso ilaa way ku qasbanta inay meesha taagnaato because right yani ma bixi karto ma dhaqaaqi karto macnaha intay tan kale hoosha ka dhamaynayso waa ina ayadana sugtaa oo meesha ay u taagnaataa subxaan allah hindi ko lang magagawa. Pwede na baby oil. Ina, magluto na tayo ng pancake. Napakahirap po kasi namin dahil nung nagkadalot po kami. Wow. wallahi waxay dhahday xaaladay dhahday aad ay u adag tahay because waxay tiri laba qof oo yani isku dhegan waa dareemi karteen culayska yani aniga gabadha isku dhegana hal mid bas aa hadlayso ilaa hadda tan kale hadalkeeda ma hayo aan daawana The twins might not be able to do everything their peers do, but they have mastered the art of creating great videos for social media. Ngayon po, gagawa po na YouTube video po sa lahat na gustuhan niya. Tuturuan ko po sila ngayon sumaya para po sa YouTube and TikTok po. yani gabadha hobkeeda muxuma waxay leedahay waxaa jeclahaa inaan sameeyo YouTube channel na hagaajisto at the same time video soo geliyo saasaa jeclaa leedahay gabadhan kale kuley way caawinaysaa walaashood inay tahay jeclaa waxay leedahay yani maxaa rabaa inaan wax walba baro Namin. Gusto ko namin sumika sa social media para tumahan. yani waxay leedahay waxaa rabnaa inaa
noqono social media dad caana inaan ka noqonaa rabnaa hobkaasaa leenahay ee leedahay gabadhan run ahaantii wallaahi yani muuqaalkaas saaka wuxuu ahaa muuqaaladii iigu saameynta badnaa oo markaa arka run ahaantii waxaa waaye aan daawada muxumo yani markaa adi morninka aad soo kacdid oo social media badankeena waa aragteen 90% dadka social media lagama maarmo markaa soo kacdid oo yani aad indhaha soo kala qaadidina oo aad yani rutiinadaadii waxaa kale aad qabatid waxaa is leedahay at least maxaa saaka cusub run ahaantii channel la soo geliyey gabdhahan waan daawaday yani muuqaalo horaan channelka ka daawan jiro iskaga xirnaa wixii cusubay iska soo dhigi jireen marka gabdhahana saaka ee lasoo dhigay marka walaahi run ahaantii waxaan ku dhahay inkastoo ay diin ahaan ay diimo kala haystaan laakiin yani human ahaan yani qof ahaan bini aadan ahaana u dareemeysaa culayska qofkan kala haysto ama yani waxaa u dareemeysaa mataqaantaa yani qofkan yani dhibaateysan qof walba bini aadan horta adduunka saaran waxaa waaye dad badanaa laga yaaba cillado yaryar haystaan maanta Soomaali Maxamed ka tirsan inay ka sheeganayaan cilladahaas yaryarka ah oo haysto 90% anaga Soomaali saa una waa deersanaa qofka waxa arkaysa asagoo wax weyn ay haysanin oo wax yaro problematic adduun uu iska haysto inuu dhaho nolosha dhan isdhiibo in uu waxaan ku dhahay qofaan waxba qabsan karin qalbiga ka aamino laakiin gabdhahan ayagoo hadda isku dhagan oo haddana isku dhaganaashaha iskaga dhagan wejiga iskaga dhagan yihiin afkaas keliya u kala bannaan marka ayagoo wejigaas iskaga dhagan oo madaxaas iyo wejiga foreheadka iska haysto ee haddana waxay leedahay waxaa noqonaa waxaa rabaa marka asxaabta qaaliga muuqaalkeena maanta intaas aan kusoo gabagabeyneynaa intaa muuqaalka xeegood ku kulmi doono bilis haddaa tahay marka kugu horeyso aad channelkeena soo dul istaagtid bilis subscribe noo saar like noo dhe wixii comment iyo fikir ahna noo reeb intaa muuqaalka xeeg ku kulmi doono anigoo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu